بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالقاد إياد بندسو إدين ودا السلامية إن شاء الله بإذن الله الرحمن كسور وادا سكالتون صحا صحا إن إلهي إذن كيسا دمانتين وحان إدين ودا رجينا يا فرحات عافماد برواقو إيو عبادة سوبا عمر دار بإذن الله الرحمن إلهي سبحانه وتعالى كو رب درتي إساق بغا إساق حشودة إسو احترام الله inaga wada dhigo dhamaanteena aad iyo aad baan idin wada salaamayaa waxaan aad idinka garaal gelinayaa inaan maaragtay intaan dhahay wax baan sameeynayaa inaan hadana maaragtay channel intaan sameeyay channelkii aan waxba soo gelinin aad iyo aad baan uga xumahay waan idin garaal gelinayaa biidmillaah wayna inoo socon doontaa arimaheenu waxyaalaha keenana waxa weeye waxaan iskaga jirnaa bandow baan ku jirnaa Allah subhanahu wa ta'ala ha furfuro oo ha ka naga saaro marka ilaahay idinkiisa mar dhow si fiican ayaa maartu xalba inoogu soconayaan hadii ilaahay raali ka noqdo dhamaantiinna waxaan idin leeyahay aad iyo aad iga raali ahaada qof kasto ila joogana waxaad ka mid tahay familkayga oo kale ilaahayna ha ku barakeeyo waadna ku mahadsan tahay sidaad ii support gareynaysid yani taageeraysid aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin qof kasto cusub nabi idmillahi rahmaan waxa leenahay soo dhawow gacmo furan qalbi furan iyo guri nabad ku soo dhawow hadaba maanta insha Allah fiidiyowgaygu ka dheeraan doona kuwii hore aan sameyn jiray awal waxaan ka dhigi jiray 5 daqiiqo ugu badnaan hadda maanta subhanallah waa 13 daqiiqo iyo maaragtay sakano waliba 40 second meelahaas ilaahay waxaan ka baryaa inuu inta carabkayga wanaaga ku sugo xumaanta ka ilaaliyo cod dheer ciyaar ma aha ilaahay wax wanaagsan oo maaragtay tayala ilaahay iga dhigo dhamaanteena hanaga wada dhigo ilaahayna dambi maaragtay gama raacsiyo recording ima noqdo maalinta qiyaame la soo hordhigo wax wanaagsan ilaahay inooga dhigo marka waxaan rabaa maanta insha Allah inaan idin la wadaago sida dahabka loo dhaqo adigoo gurigaaga jooga adigana maaragtay ciyaalka codkooda ka yararaa leeyahaada ciyaalka guriga ii jooga ma sha Allah marka si adoo gurigaaga jooga dahabkaaga loo dhaqdo marka u horeysa waxaan rabaa in hadii sheego horta anigu dahab ma sha Allah melihi dahabka waaweyn melihi waa soo gali jiray ilaahay qudradiisa laakiin ugu madaaho laakiin hadda intaasan dahab haysta ma sha Allah caawa hadaan intaasan xiliyo xoolo haysta ma sha Allah marka waxaan xidhaa katiinadaha adka u yaryar ee cunaha marka lagu xidho jiqda ku noqonaya ama wax yar in yar maartay dhuunta soo gaadhaya aadka u gaaga marka laba xabaan haystaa labada xabo waa laba gaagaaban laakiin in yar wax kala design duwan yihiin oo designka kala duwan qaabka u sameeysan yihiin baa kala duwan bahalka carabka igu jira waa wadna weeye mid baan markii hore haystay hakiiba iga waayay intaan meel dhigay hadana maadaama waxa maartay jeclahay loofka sidiisa u sameeysan wadnaha u sameeysan loof haadka u sameeysan baan waxaan sameeyay islakiyo kalaan soo gato wax yar ka yar hadan kaygi baan hadana helay ma sha Allah marka labadii katiin baan kala galiyay midna waa wax uu yara weyn yahay midna uu yar yahay waxaan haystaa laba fargal oo yar yar oo labada gacmood la kala gashto iyo hal xabo oo weyn wax kale ma haysto dhagayaalka waxaan haystaa 3 dhago waxaan haystaa 4 dhago oo yar yar oo kala nooc ah oo yar yar oo dhagta graan amal oo kala dhagta ma sha Allah ku dhagta in ay ugu jirto bas la arki kara qofka markaan guriga la jooga arki kara marka dahab aniga ma sha Allah malihi laba siyoodu malihi cidi dahab hadda ma xirato inta kale dahab halka iska yaalo waxba ku faraynin inaad saka ka bixisid mooyaane waxa macnaa ku sameyn maayo ma sha Allah waxaan sameeyaa marka waxaan ku shubayaa shaambada caadiga ah ee timaha lagu dhaqo iyo malqacad huruuda iyo biyo caadiya waxaan ku dhaqayaa brushada yar yar ee soft brushka yar waa kaciyaalka aad buu soft u yahay ma sha Allah tabarakallah markaan shaambada ku shubay huruudi ku shubay dabka waxaan saarayaa muddo 5 minutes 5 minutes 5 daqiiqo baan karinayaa runtii malqacada aan ku walaaqayo waan tartiibinaya ahayr inaysan jabinin xaqiiqana ma aha dahab aan uga baqayo inuu jabo laakiin dahabka daldaloolada badan leh ama maartay shabaq aad buu khatar u yahay malqacadu inay iskaga ka duusto marka iska ilaali brushkana waxaan ugu walaaqaa brushkuna caag weyn iga dhalaalan ka baqay adigu wax yar qoriyo camalaba ku fiicnaan lahaa saasaad ugu dhixmarisid hadaadan ku walaaqina khasaba maana hada waa idin tusay kaliya mooyaane khasaba ma inaad walaaqdid oo dahabkina walaaqda khasab maaha marka biidmillahi rahmaan 5 minutes markuu karo
biyahaas waana hadda dabka ii saaran yihiin markay karaan waan soo qaadayaa marka waa intuusaya saan u dhaqayo insha Allah haddii ilaahay raali ka noqdo ani waxaan gabdhaha ku boorin lahaa hooyooyinka gabdhaha loo guursanayo gabdhihiina dahab ku xukuminina wiilka dahabkeen kan cidina dahab ma xirato gabadha yar dahab ma xirato waad ogtahay adig gabadhaadu inaan dahab xiranin marka hadday dahab xiranayso aliis waxay rasuulka ugu xiran adi laftka waxay rasuulka isaga ka xiran khasabna maaha inaan qofka sida ciqda ah oo maanta katiinadaha aniga aan waan xidhaa cunaha ku dhagaya maaha in dadku xidhaan qof walba dooq uu leeyahay laakiin yani qodobka aan soo noqdaan rabo gabdhaha yaryar ee maaragtay hadda lidinka guursanayo horta alxamdulilah dhaha hadii ilahay wiil muslina oo maaragtay ilaahay uga baqaya diinsiya laakiin dahab waxba ha ku xujeynina dahab ha gado 20 kun oo dahaba ama 30 kun oo dahaba ama 10 kun oo dahaba markuu gado oo aad ogtahay gabadhaadu inaysan xidhanaynin oo jeclaynba aad gurigiis ka dhigaysaa dhaas kan anu ku haye miskiinka waxa ku dhaantay inta leedahay dahab u gad gabadheeda dahab loo gado waxa ku qaatay oo xaqa dahab khasab ma inuu dahab u gadee inuu meherkeeda siiyo oo meherkeeda u hormariya ayaa kaaga wanaagsan intuu dahab gadi lahaan waxba lagu falaynin in ilaahay maartay wiil xalaal ku siiyana ma sha Allah muslina oo Soomaaliya ka wanaagsan waxa soo dhaamacid doona haada muslina ma sha Allah tabaarakallah markaas shaambadaas caadiga baan ku dhaqayay waan soo dabkii baan ka soo dajiyay soorigana raali hada toobiga kale aan galay laakiin waan jeclaystay inaan maartay hooyooyin badan la wadaago markaan dabkii ka soo qaaday bahalka cawcawdaan saaray digsiyada kulul badanaaba fiican hoosta ka saaray si meesha darbinay ka madoobaato ama maartay ay iskaga fiican tahay waxaan sameynayaa xabad baan soo qabanayaa brushka yaraa baan ku dhaqayaa markaan dhaqona baaquligaas aan ku guranayaa bahalaha markaa katiinka carabkooda ama kooraha bahalka qoortaan surayo kaasaa shabaq yar leh oo iska gugalaya kaasna waan ka dhaqayaa runtii labada katiinadood madowga waad yaabayseen way madoobaadeen laana surkii markaad jirkaaga wuu iskagayaayo waxaad marsanaysaa kareemkaad marinaysaa galayo qasilkaad wejiga marsanaysa ama huruudi ama waxa wejiga marsanaysid ama surka marsanaysa katiinkiina wuu galayaa marka katiinada saas bay u iskagaan marka dhowrkii biloodba mar hadda inta saasay karkarsatid waa qurux dahabluhuna wuu karkariyaa dahabka saas u sameeyo marka inta dahabka moosin ku dhalaalinayo kuma dhalaalinayo huruudaas iyo biyahaas shaambadaas uu kugu karkarinaya soo noqo ku dhahaya sidii uu ku siinay wixii dhalaalaya laakiin aad gacantaada ku sameeyso dahabkana shakiyo idinka gelinaya dad sidii armu dahabku xumaada ama gubtaa dahabku ma gubto mana xumaado bismillah sidiisa soo haanaya ma sha Allah isma bedelayo qurux uu ka noqonaya maybe waxa maartay dahabka ahayn baa gubto oo madoobaada waxa maartay yani beenbeenta laakiin ka dahabka ma xumaado hatta guri haduu ku gubto dahabku sidii soo haanaya ma xumaanayo almuhim wakaasa bahal yar dhagahayga wax kuwaasa dhagahaasaan xidhaa dhagayaal yar ma afar xabaan ka leeyahay waxaan jeclahay waxyaalaha faska yar ku jiro oo faska cas iyo faska greenka iyo xasan jeclahay iyo inuu haduu ku jiro xitaa khasaba maaha marka adigu intii baan dhaqayaa ma sha Allah tabaarakallah runtii waan idin ku soo celinay aniga dahab malihi waxay laba kaatun oo yar aan labada farood kala gashto laba katiinadood oo yar kala duwan oo kala laba nooc ah oo maartay kala bedeshado iyo afar dhagood oo yanjan oo garaana gabdhahaygana ma sha Allah gabdho waa ilaahay uu siiyay ayaguna ilaahay qudradiisa maba jecla dahabka hadaan isla ciidaha iyo xidh maba kala jeclaba marka aniga intaas weeyaan maartay hantidayda qaranka waa intaas weeyaan waad la kaftamaya marka intii baan waa ma sha Allah markaan dhaqo oo yaani ma sha Allah tabaarakallah waxay ii noqonayaan gold quruxda wad yaabsa ma sha Allah biyaha saacad baan ku dhaqanayaa kaagama baahna inaad tirtirtid inaad qalqalajisid kaagama baahna deelaan dad ixtaab isagoo biyo kule biyeelaad xareysatid ma maaroobayo waa dahab ma sha Allah marka dahabkii yara ee hantidii maanta waa taasa waxaan rajaynayaa gabdho badan oo saaxiibadahaya inay dahabkooda dhaqanayaan inay maartay kuwaan iyaga dahabka lahayn oo rabinin inay hooyooyinkood maartay islaamaha sida qoorta ku madoobaadeen inay u dhaqayaan in wiilasha laftirkooda hooyooyinkooda insha Allah u dhaqi doonaan oo maartay ka faa'iideysan doonaan ilaahay idankiisna waxaan rajaynayaa bismillah waxaan rajaynayaa waxa aan soo galiyo
inuu maarta wax ummadeena anfaca dadkeena anfaca laga faa'iideysto inuu noqdo waan heli karay bariis iyo baasto inaan soo sameeyo laakiin waxaan isiri waxa gooni ah bal isku day oo maaragtay fikir ah inaad keeni kartid oo aan dadka kale keenin ama qof kale YouTuber aniga kuma arago dahabka sida loo dhaqo marka waxaan isiri wax kale laga faa'iido maadaama gabdhaha kale wax badan laga faa'iido adigana intana laga faa'iido baan isiri marka insha Allah lagu wada dadaalo dhamaantiinba subhanallah codkayga wuu isbedelay laana videoga saydu dheeraaday bismillah aad buu u dheeraaday ma sha Allah tabarakallah Allah sahlo wali waxay saharsan 3 daqiiqo ay saharsan marka ba 3 daqiiqo waska sahalaya anyway bahali markaan kaayar waa dumlad weeyaan waxa dumlad deerasa wareegsan oo caadi ah kaayarna aad buu u yaryahay sagana fartaas ka gashada midigtaan gashtaa midigtu way ka buurantahay gacanta bidixda markaad intaada yar isku dhaqatid ma aragtay aad saacadaada yarna jag isku siisid cilaankaaga yarna ku saaran yahay gacmuhuna ay yihiin ma aragtay baasaboorka ay yihiin oo wajiga sida wajiga kale ay yihiin waa qurux kaasna waa dhaga yar yar oo waa dhagahan markaas xidhnaa ma sha Allah kuwaasna iyagana waa dhaga yar yar oo kale kuwaas way yar culus yihiin mochi waxa weeyaan waa dhowr gram weeyaan laakiin aragtiyan way yar yihiin markaan xidho waana kuwa igu waaweyn haya katiinkii waa kaasa ma sha Allah mid kamida waa wax yar yar sawirka weynaysinaya aad bay u yar yar yihiin gaagaaban yihiin cunahayga waa kama soo degaan jiq bay ku yihiin in yar bay dhuuntaas mid soo gaadhaa markaan carabka geliyo baalka koorta geliyo laakiin sida kale waa Soomaaliya anaga dhinaca waqooyiga waxa la dhahaa dig baa la dhahaa wadankeena maartay koonfurna yani waxa laga yaabaa si kala looga yaqaano laakiin waqooyiga dig baa la dhahaa wax yar jiq cunaha ku dhaxaysa marka kaatunka ay saacada waa isku match gareystaa saacada cad saacada madow saacada cas saacada nooc kasta tahay dahabku ku soo baxaa ma sha Allah tabarakallah waa kaasa marka gambaan ka siiyay alaabta khatarta ah waxa dhibaato ma jirto culays badan ma jiro maaha waa garaamo yar oo maartay wax ilayga rabo maaragtay sakana ma aha wax 85 ama 83 gram markuu yahay buu yahay baska laga rabaa laakiin inta arda waa inta qoorta ku xidha ma sha Allah sakawa maaha quruxda waa kaasa markii horena madow buu ahaan dhaqayay hadana saas weegiya ma sha Allah tabarakallah kaasna waa hal kaatun oo iska gooni ah dad waxay ku lahayaan kaatunkaas waa kaatunka arooska dumnada waa marka maaragtay qofku engage ka yahay warnaga muslim markaan waxaas ma sameeyno marka ayayna ku dayaneen umadaha kale diimaha kale haasayna ku dayaneen kaas waa kaatunka aragoonida mana xidho laakiin waa iska haysta waan jecelahay bahalaha ku jecelahay laakiin wuxuu eegay kuwa aroosyada dadka iskuursada dumnada yar hore ugu jirtana kuwa engage-ka loo galiyaa way isku wakayd laakiin aniga ma muslim baan ahay waxaas ma maartay ma beliefsani marka saas waa kaasa dhamaantiin waxaan idin rajeynayaa barwaaqo bash nimco caafimaad fiican ra'yi qurux badan halka igu soo dhaaftaan wixii khalad ah adiga qabataan islaamku muraayad buu siyaa markasta eragaas waan adeegsadaa dhamaantiin waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah isoo cafiya Allah hayna kala cafiyo Allah isoo keen dambi dhaafo farxad iyo barwaaqo iyo bash baan idin rajeynayaa cuduradan iyo aafooyinkan dhacaya Allah hayna dhaafiyo ummadeena islaamka meel kasta joogta Allah amaansado dhamaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sakanaasi kanadaas iyagaas ka dhamaanaya waa daalay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi